Dunidan aynu ku noolnahay, qof kasta wuxuu leeyahay sheeko u gaar ah, balse waxaa jira sheekooyin ka gudba xuduudaha mala'awaalka. Maanta waxaynu dhex gali doonnaa safar aan caadi ahayn oo nuxur iyo xamaasad xambaarsan. Diyaar ma u tahay inaad ogaato sirta ku qarsoon nuxurka sheekada carruurnimadii Cristiano Ronaldo? Ma ahayn mid fudud, waxay ahayd mid ay ka buuxaan caqabado, saboolnimo, iyo dadaal aan kala go' lahayn. Haddaba saaxiibayaal, waxaan idinkaga soo diyaariyey 10 qodob ee ugu muhiimsanaa Cristiano Ronaldo noloshiisii carruurnimada. Hase yeeshee is-xasuusin, haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalkan oo u share garay saaxiibadaada. Sidoo kale, haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha TV, fadlan na soo follow garay, like saar muuqaalkan oo u share garay saaxiibadaada. Mahadsanid, aan u sii gudagalno. Qodobkeena koowaad, bilowgii noloshii adkayd iyo saboolnimadii. Ronaldo wuxuu dhashay 5 Febraayo 1985, isagoo ku dhashay xaafadda Santo Antonio oo ku taal jasiiradda Madeira ee dalka Portugal. Qoyskiisu waxay ahaayeen dad aad u sabool ah, wuxuuna ku koray guri yar oo jiingad ah, kaas oo xilliyada jiilaalka ka dusi jiray qabowga. Ronaldo qolkiisa waxaa la qaybsan jiray 3 walaalihiis ah. 2 Magaca Ronaldo halka uu ka yimid. Magaca labaad ee Cristiano Ronaldo waxaa loogu magac daray madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan, kaasoo ahaa otoore uu aad u jeclaa Ronaldo aabihiis, Jose Denis Aveiro. Tani waxay muujinaysaa in qoyskiisu ay hiigsan jireen wax weyn, inkastoo ay dhibaataysnaayeen. 3 Shaqada aabihiis iyo saameynteeda. Ronaldo aabihiis wuxuu ahaa nin beerta ka shaqeeya, laakiin haddana dhinac kale wuxuu qayb ka ahaa kooxda yar ee deegaanka ee Andorinho, isagoo u ahaa ninka qalabka u qaada. Halkaas ayuu Ronaldo ka bilaabay inuu kubadda cagta u dhawaado, isagoo aabihiis ka caawin jiray qalabka. Sidaas ayuuna ku bartay aasaaska ciyaarta. 4 Naanaysta Crybaby. Ronaldo markii uu yaraa waxaa loogu yeeri jiray shinnida yar, sababtoo ah ma joogsan jirin, laakiin saaxiibadiis waxay ugu yeeri jireen Crybaby maxaa yeelay haddii uu saaxiibadiis gool u dhalin waayo ama kubadda laga dafo, wuxuu bilaabi jiray inuu ooyo, taas oo muujinaysay tartanka iyo guul jaceylka ku jiray tan iyo yaraantiisii. 5 In laga eriyo dugsiga ama iskuulka. Ronaldo ma ahayn arday jecel waxbarashada. Markii uu jiray 14 sano, waxaa laga soo eriyay dugsigii uu dhiganayay kadib markii uu kursi ku tuuray macalinkiisii. Ronaldo wuxuu sheegay in macalinkaas uu ixtiraami waayay isaga. Dhacdadaas kadib, Ronaldo hooyadiis waxay ku raacday inuu xoogga saaro kubadda cagta oo kaliya. 6 Ka tagista jasiiradda Madeira. Isagoo 12 jir ah, Ronaldo waxa uu qaatay go'aan noloshiisa beddelay. Wuxuu ka tagay hooyadiis iyo walaalihiis si uu ugu biiro akadeemiyadda kooxda Sporting Lisbon. Wuxuu ahaa wiil yar oo kaligiis ah oo ku nool magaalo weyn, wuxuuna sheegay in uu habeen kasta ooyi jiray isagoo u xiisay qoyskiisa. 7 Dhibaatadii luqadaha. Markii uu tagay Lisbon, Ronaldo waxaa ku adkaatay isgaarsiinta maadaama uu ka yimid jasiirad. Lahjadiisu waa ay ka duwanayd dadka caasimadda. Carruurta kale ee akadeemiyadda waxay ku jeesjeesi jireen sida uu u hadlo, taas oo ku qasbi jirtay Ronaldo inuu mararka qaar dagaalamo si uu isku difaaco. 8 Qalinkii wadnaha. Cristiano Ronaldo markii uu 15 jir ahaa, xirfadiisa kubadda cagta waxay ku dhawaatay inay dhammaato maxaa yeelay waxaa lagu arkay xanuun dhanka wadnaha ah. Wadnaha oo u garaacmayay si ka dhaqso badan sidii caadiga ahayd. Sidaa darteed, waxaa lagu sameeyay qalliin laser ah si loo saxo dhibaatadaas. Nasiib wanaag, qalliinkii waa lagu guuleystay, isla maalmo kadibna wuxuu ku soo laabtay tababarka kooxda. 9 Gaajadii iyo McDonald's. Ronaldo wuxuu mar dambe shaaca ka qaaday in markii uu joogay Lisbon uu ahaa mid aad u gaajaysan oo aan haysan lacag ku filan. Habeenada qaar, isaga iyo dhowr wiil oo kale waxay tagi jireen maqaaxida McDonald oo u dhoweyd garoonka, iyagoo weydiin jiray haddii ay jiraan beegars ka haray dadka si ay u cunaan.
taban geeridii aabihiis iyo balantii uu galay. Inkasta oo uu aad u jeclaa aabihiis, haddana Ronaldo aabihii wuxuu ahaa nin aad u caba khamriga, taasoo keentay inuu u dhinto xanuunka kaliyaha markii Ronaldo uu ahaa 20 jir. Ronaldo ayaa ballan qaaday inuusan weligiis cabi doonin khamriga, uuna noqon doono ciyaartoyga ugu fiican adduunka si uu u caawiyo hooyadiis. Ballantaas ayaa ka dhigtay Cristiano Ronaldo qofka uu yahay maanta. Haddaba saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadka sheekada nolosha Cristiano Ronaldo. Ma ahan oo kaliya mid ku saabsan guulaha kubadda cagta, balse waa dhiirigelin muujinaysa in halka aad ka timid aysan go'aamin halka aad gaari karto. Isagoo ka soo kictamay nolol saboolnimo ah kuna soo koray guri yar oo ku yaal jasiirad fog, wuxuu maanta noqday astaanta caalamiga ah ee ugu saameynta badan dhanka isboortiga iyo ganacsiga. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg Cristiano Ronaldo sheekadii carruurnimadiisa. Intaan ku kulmi doono sheeko tan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.